بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا maanta ma rabo inaan hadal badan hadlo because waxaan rabaa kaliya inaa wax faa'iideysataan insha Allah xamaama maqrib aad iyo aad u fiican ayaan rabaa inaan idinla sheer gareeyo marka dhammaan gabdhihiina walaalaha u sheer gareeya mideeda kaleeto waxaan halkan ku haystaa agabkii aan ka sameysan lahaa caagadan waxaa igu jira hadeerta malab sidoo kaleeto halkan waxaa igu jiro timir aan biyo la soo dhigay oo lafaha ka soo bixiyo aloe vera gel sidoo kale caano coffee gasoline iyo olive oil ayaa halkan ii taalo sidoo kaleeto waxaa ii yaala halkan huruud iyo cusbur shumburo sidoo kaleeto saabuun aan soo xoqay kafee ayaa igu jiro sidoo kale xulbad ayaa ii taalo caagadaas kaleetana waxaa igu jiro maqribi oo iga sii dhamaanayo mise saabuunta maqribiga saa u taqaanid haatan waxaan gudagaleynaa karintii insha Allah dabka ayaan soo shiday kadibna digsi ayaan saaray kadibna waxaan rabaa inaan alaabta isku kariyo insha Allah idinkana ka faa'iideysta haatana biyo ayaa ku soo shubanayaa digsiga qiyaasta adiga leh aniga intaan waa qiyaastayda mise inta igu filan aniga ayaan ku soo shubtay sida u jeedin biyaha markaan ku soo shubto timir ayaan ku soo shubanayaa timirta aan biyo la soo dhigay saacado badan oo isku ayada dhan si fiican iskagu dhex milantay insha Allah ayaan ku soo shubanayaa markaan timirta aan ku soo shubay kadibna guys hadeertana waan walaaqayaa marka walaaq kadibna saliida ku soo darsanaya olive oil asxaabe mid ay idinka waaninaya marka baashan karinaysaan xamaama maqribkan waa inaad dab yar ku karisaan oo dabka zaid aad u gaabisaan ma la rabo inaad dab badan lagu kariyo because hadii kale way ka gubanaysaa mana fiicna inay ka gubato marka si fiican u taxadar dab yar inaad ku karisid waa insha Allah waa u jeedaan hadda aniga xataa dab yar ayaa isticmaalaya hadda marka si fiican isku dhex geliyo kadib waxaan ku soo darsanayaa saabuunta maqribiga ahayd oo aan haystay 2 qaado ayay igu jirtay ku soo shubtay kadib hadda malab ayaa ku soo darsanayaa malabkana muhiim ayuu yahay alaabtan marka isticmaalaysid because whiten macaan ay ku siin doona insha Allah malab ayaan ku soo darsaday inta igu filan adigana mar walba waxa ku soo darsan doontaa qiyaastaada oo markaas inta kugu filan hadda waxa ku soo darsanayaa saabuun aan soo xoqday ma jirto saabuun oo magac gooni leh oo loo isticmaalo marka alaabtan karinaysid saabuun alla saabuunta haysatid ayaa isticmaali kartaa ma jirto saabuun markaas u gooniya ma fahanteen guys saabuun alla saabuunta haysatid soo xoqo kuna soo darso insha Allah muhiimadu waa inaan si fiican isku dhex geliyo kadib adeerta markaan si fiican oo isku dhex geliyo ayaa rajeynayaa xumba ayay soo yeelatay u jeedaan kadibna waxaan ku soo darsanayaa alaabtii soo diyaarsaday huruudi cusburkii qusihii ama qasilkii xulbadii iyo sidoo kale kafeegii ayaan ku soo darsaday iyo shumburadii oo saxankii igu jirtay alaabtii saxankii igu jirtay dhamaan ayaan ku soo gadistay meeshan saa u jeedaan muhiimadeeduna hadda waa inaan isku walaaqo sifa ay si fiican iskugu dhex gasho een iga yeelanin wax kuus ah waa inaa qaadada ugu roonaatid marka xaaladan marayso oo si fiican aad u walaaqdid insha Allah muhiimada ma ahan in lagaaga sheekeeyo waa inaa adiga tijaabisid marka si fiican iskugu walaaqi kadib aan isdhex geliyo sidan ay ku soo baxdaa sida u jeedaan ma sha Allah ayada dhan qurux ayaba noqotaybo wallahi waxa ku yiri lagama sheekeen karo ma sha Allah shokolaad ay soo noqotay markan waxay ku macaan tahay in caadi loo cunubo aan iska kaftamayaa laakiin wallahi ma sha Allah ani ahantayda alaabtan zaid ay qancisa muhiimada ma ahan adiga xataa inay ku qanciso hadii aniga qancisa haddana waxa ku soo darsanayaa aloe vera gel mise dacar ayaa ku soo darsanayaa dacar oo gel sida u jeedaan dacarta inta qiyaastaada ayaa ku soo darsanaysaa kadib marka ku darsatidna waa walaaqaysaa si ay isku dhex gasho muhiimada ma aha inaad maxaa la dhahayaa alaab badan ay haysatid sida u samaysatid xamaama maqrib 2 shay haday haysatid xataa waa ka samaysan kartaa muhiimada ma aha inaa maxaa la dhahayaa wax badan ay haysatid muhiimada waa inaa inta adiga inta haysatid
waa ina adiga ka samaysan kartaa. haddana waxaan rabaa hadduu ilaahay ku idmaayo inaan kusoo darsado gasoline. waxaan kusoo darsanayaa 3 qaado. intaas ayaa aniga igu filan ani ahaanteeda saas dhahayo. waan isku walaaqayaa maadaama gasoline uu adag yahay oo saliid xoogaha adag uu yahay, marka waa inuu uu noqdaa soft oo maxaa la dhahay si fiican u burbura insha Allah. saa u jeedaan markaas si fiican isku dhexgeliyay kadib haddana waxaan kusoo darsanayaa caano ayaan kusoo darsanayaa koob caano, kadibna waan isku walaaqayaa insha Allah. asxaab ayaa laga faa'iidaystay alaabtan, maahan waxaan afka kasoo koobi kara kaliya, waa wax u baahan in la tijaabiyo, waa wax u baahan in la isticmaalo. wallahi idin ma xayeysiinaya alaabtan, halka maraad isticmaashid ayaa ogaanaysaa natiijadeeda. haddaa gabar tahay, haddaa aroso tahay, haddaa tahay gabar waxbarashada maxaa la dhahay ku mashquusho nafsadeeda ilowde, way ku anfacaysaa alaabtan. haddaa tahay gabar xaamilo ah, way ku anfacaysaa alaabtan. ka faa'iidaysta dhammaantiin gabdho. haddaa tahay umul, wax kasta adiga aad tahay, kolley gabar iyo wiil xataa way u fiican tahay, ma ahan wax kiimika leh. saa u jeedaan waan isdhexgeliyaa si fiican smooth u noqotay maasha Allah. ilaa hadda way ii karaysaa, way isku dhexmilantay, dabkana wuu igu gaabsan yahay. haddana waxaan kusoo darsanayaa scribe-kaas kusoo darsanayaa oo maxaa la dhahay wuxuu ka samaysan yahay qajaar. 2 qaad ayaa kusoo darsaday. marka maxaa la dhahay alaabtan la soo tijaabiyay. alaabtan waa iiga soo duceyn doontaan anaaba hubee. ka faa'iidaysta meel kastoo joogtiin, ka faa'iidaysta. mideeda kale ma ahan wax qaali ah, ma ahan waxaan la heli karin, waa wax meel kasta laga heli karo, ma ahan kiimiko. haddaan necebtahay kiimikada xataa alaabtan waad isku cadeyn kartaa. muhiimadana waa inaad fridge haysatid. haddaa alaabtan aad samaysanaysid wax badan waa inaad fridge gashan kartid. haddii aad haysanin fridge waxaa waaye inaad maxaa la dhahay wax yar oo markaas aad isticmaali kartid aad samaysatid. laakiin haddaad samaysatid wax badan way ka haloobaysaa. alaabtan fridge la-aanna ma anfacayso. muddo bil haddaad kal iyo laab iskugu wadidna dee waa ogaan doontaa natiijadeeda. haatanna diyaar ayay ii noqotay. dabka ka damiyey markay qabowday kadib hadda waan iskula ordisaa. ujeedaan maasha Allah, gacanta dhan aan marsade saa idin tuso. kadib markaa xoogaha suga waxaan kiri gacanta iska soo dhaqa maasha Allah. alaabtan markaa isticmaalaysid first jirkaaga biyo kulul ku shubaysaa, yacni biyo qandaca ku qabaysanaysaa. markaa jirka dhan qoydid ayaa marsanaysaa, kadib ayaa isku dhaqaysaa. ma fahanteen? markii xoogaha waa inaad ku sugtid adiga 10 daqiiqo kale, waa inay jirka ku marsanaatay kadib ayaa dhaqaysaa. waa kaas hadii gacanteeda si noqoto maasha Allah lagama sheekeyn karo. weelashan ayaa kusoo diyaarsaday inta ay ii noqotay aniga. hadda waxaan rabaa inaan fridge-ka gashto insha Allah. muddo bil ah waxaa ku yiri isku wad mise 3 isbuuc insha Allah. adiga arki doona natiijadeeda. meel kastoo joogtaan waa idin salaame. assalaamu calaykum waraxmatullaahi